السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير شرفت لسود وهذا maanta waxaan rabnaa muuqaalkan inaan uga hadalno muuqaal gunaanida especially waxaan uga hadli doonaa maxay kaa kici kartaa inaad business online bilowdid. Waxaan kaloo dul istaagi doonaa insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo inaynu qodobo hore aan dib uga hadalnay aynu dul marno insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo. Wuxuuna noqon doonaa haddii aad horey taxanayaasheena ula socotid muuqaalkii ugu dambeeyay. Marka koowaad waxaan kugu soo dhaweynayaa boggeena. Waxaan kaa codsanayaa bogga inaad follow garaysid oo like ku dhufatid si ay bulsho badan oo kale uga sii faa'iidaysato. waxaan taxana aan bilownay ku saabsanaa sida aad ku bilaabi kartid online business sanadkan cusub oo boorka isaga jafi kartid. Haddii business kaadu uusan online ahayna aad uga faa'iidaysan kartid farsamooyinkan online-ka la isticmaalo oo aad runtii business-kaada aad ugu sii hormarin kartid. Haddaba marka shaqadeena hadday saas ahayd maanta waxaynu dul istaagi doonaa qodobkii ugu dambeeyay oo ah business online maxaa kaa kici kartaa sidoo macnaha aad online-kaada active aad u kicisid taasaynu dul istaagi doonaa insha Allah. Waayo marka horta si guud stepkan waa stepkii ugu dambeeyay runtii stebyada waa dhamaynay hadda waa isku soo aruuris oo meeshii ugu dambeysay taagan insha Allah. Waayo marka si aynu hadaba isula fahanno qodobkan haddii aad ku cusub tahay taxanaheena waxaad dib u daawan kartaa muuqaaladii kala duwan aan hore usoo duuduubnay oo stebyada kala duwan oo business online kala bilaabayo lagu bilaabaa. Hadda waxaan ka hadli doonaa dhaqaalihii ugu ka hadli doonaa businesska markaad bilaabaysid online-ka ah koowaad waxaad u baahan tahay waxa la yiraahdo website iyo hosting iyo domain baad u baahan tahay. Domain waxaa loola jeedaa magaca la isticmaalo tusaale ahaan xirfadkaab.com sahal.com magacyadaas ayaa la yiraahdaa yani ba domain la dhahaa. Marka adiga businesska shirkadaada magaceeda oo kale iyo .com ba isla baxaysa ama wax la mid ah ama .so haddii .com laga qaato kaasoo kale wuxuu noqon karaa $12 ayuu ka noqon karaa. Sidoo kale hosting ayaa jira. Hostingka marka waxa weeye sanadlaha ah haddii la qiimeeyo waxa uu ka geli karaa hostingku waxa weeye waa computer online ah oo xogta aad saaran kartid oo website-kaada la saarayo marka server baa loo yaqaanaa. Kaas marka waxa kaaga bixi kartaa $80 iyo wax u dhow adiga areas. Marka adigu marka la isku daro domain-ka iyo hosting-ka $100 ay isku noqon karaan. Inta markaan ka tagno waxaad u baahan tahay xayeysiinta marka business-kaada waxaad u baahan tahay productyadiisa ugu horeysay inaad xayeysiisid ama service hadduu ahaa service-yadii koowaad inaad xayeysiisid. Xayeysiintaas waxaad ku bilaabi kartaa ugu yaraan $25 laakiin kor baa u socon kartaa runtii $25 kuma filna markii si hoose loo hadlo laakiin waa starting up. waxaa kaloo u baahan tahay designada iyo waxyaabaha aad ku samaysid oo business-kaada kusoo bandhigtid. waxaad isticmaali kartaa Canva oo qaybta free-ga ah ama waxaad isticmaali kartaa Photoshop oo aad computer-kaada ku shubatay. waxa ay taas ka kici kartaa Canva Pro hadda isticmaalaysid $15 oo kale wax u dhow. waxa kale u baahan tahay waxa loo yaqaano Google Formski iyo Excel Sheetski iyo WhatsApp Businesski oo shaqooyinka asaasiga ah ku qabsanay. taas marka waa iska free. waxa kale u baahan tahay qodobka xiga oo ah productyadii ama service hadduu yahay cidii shaqada qaban lahayd. taas marka waxay kugu xiran tahay inta aad ku bilaabaysid intuu leeyahay waxaad ku bilowday intuu leeyahay ku xiran tahay. dee productiga dalbatay hadduu wax $200 $300 ku kacay ahayd $300 baa ka gelisay. ileen product markaa dalbaysid sidaan hore usoo sharaxnay hal mar ma dalbanaysid wixii oo dhan hal mar ma keensanaysid. waxaa keensanaysaa in isla socoto oo aan kala maarmi karin alleelaa is leedahay ma kala maarmi karto. intaas ayaad hal mar dalbanaysaa. intaa marka waxay kugu xirnaan kartaa $200 $500 iyo wax la mid ah iyo kaba hooseysa darabto. marka qaybtood yes waxaa gelaysaa day wax qaali ah waxa laga yaabaa $2,000 $3,000 $4,000 $10,000 in halka aadaba dhici karta. waxay ku xiran tahay hadba waxa aad bilaabaysid laakiin waxa aad bilaabaysid lacagta iyadoo dhan ha soo wada gadana qayb kamid ah hortu gado. qaybta kamid ah testi ahaan hortu bal dadka u geli kadibna sidaan hore u sharaxnay wixii hadba kaaga soo baxa dib ugu celi wixii marka saasay xisaabta isugu ka buuxinaysaa. in fact business marka bilaabaysid si yar inaad ku bilowdid faa'iido gaar ay leedahay. taa waxay kuu fududeynaysaa inaad business-ka fahantid horta marka koowaad suuqa fahantid. suuqa marka fahantid oo si sax ah u taqaan waxa u baahan tahay hadhow marka hal mar waa geli kartaa oo lacag badan hal mar baad u dhigi kartaa ama maalgelin waa qaadan kartaa iyo wax la mid ah. haddaa si kale u heshay ama aruurisayna waa okay. haddii kalena dib baa mar walba wixii kusoo geliyay aad dib ugu gelin kartaa. marka inahaas ayaynu isdhihi karnaa business-ka online-ka ah waad ku bilaabi kartaa. marka koowaad isku celcelis haddaynu isku aruurino maxaa la yiraahdaa waxaanu isugu aruurin karnaa
ilaa $200 inay waxyaabaha kale kaa geli karto. productiga ama surfacekana haddaad surfaceka shaqadii haddii aad u taqaanid already lacag ma kaa gelayso, shaqadii marka lagaa soo dalbado unbaa dadka usoo qabanaysa haddaad surfaceka adig taqaanid. hadduu yahay productiga wuxuu yahayna productiga dee tira waa inaad ka haysid cayiman, marka kasoo qaad kana 5 xabo kasoo gadatay, kana 5 kana 5 kana 5 shay oo kala duwan oo meesha 5 soo gadatay wixii baa soo bandhigaysaa sida loo daldalbada. marka kan aadka loo jecel yahay hadhow soo badin doontaa, saasaad raacaysaa procedurekaas oo kale ama wax dhow. hadhow marka dib baad lacagta ugelgelin hadhow ilaa marka ugu dambeysa wixii ay kuu fariistaan. waxaana marka la isku aruursho waxaa la dhihi jiray quraanjo aruurta milic waa jiidaa. haddaad isku aruurisid lacagtaada ugu dambeyn marka dambe waxaa kuu fududaanaya in aad si fudud businesskaadii u ballaarto ayaa kuu fududaan kara. hadduusan noqon business waxaan shaqaynayna lacag badan kaama gelin, waad fahantay inaysan waxaan shaqaynaya uusan ahayn, waad ka wareegan kartaa ama sidii markaa kale ugu dhow baad ugu wareegi kartaa insha allah. laakiin talada aan ku siinaya waxa weeye mar haddaa ganacsi bilowdid ha ka laalaaban oo ha ka warwareegin. haddaad suuqa ka baxdid hadhow suuqa lalaba qabsan kartid. sidaa darteed suuqa mar haddaa geshid oo suuqley aa noqotid waxa weeye horaa laga sii wadaa oo weligaa waa lagu jiraa maaragtay si aad maaragtay uga nib keentid. yes marka dhagtood waa dhici kartaa inaad suuqii ganacsiga ka baxdid oo xagga kale aad u baxdid oo shaqaalanimo iyo u dalacdid ama xaggaas aad u noqotid way dhici kartaa. taana dhibaato ma laha haddii faa'iido gaara kugu jirto markaas, laakiin si guud hadda waxaynu ka hadlaynaa fikraddeena kusoo aruurinayna in businesska marba haddaa ku beegtid aadan suuqa ka bixin si suuqa u fahantid oo la sii socotid. waayo marka intaas waa inaha aynu aan isleenahay qodobka ugu dambeeya kusoo aruurinayno taxanaheenan intaan isla socotay at least. qodobada hore uga soo hadallayna waxaynu sheegnay ilaa 10 qodob oo businesskaada markaad bilaabaysid online-ka, sida inay kamid tahay fikraddii inaad dooratid modelka ganacsigaada, targetka ama meesha macaamiisha cidda ku noqonayso khaaska ah, fikraddaada marka koowaad in la xaqiijiyo oo maaragtay market research la sameeyo intaadan businesska isaga ordin. haddii kale waad khasaaraysaa. iyo online presencegaada inaad setup garaysid, productgaada diyaarisid, marketingkaadii aad diyaarisid, lacagihii diyaarsatid, macaamiishii qancisid oo productga geysid, profitkaada dib meesha u maalgelisid, haddii wixii ku hagaagaana sii kicisid oo automate garaysid, scale garaysid. inahaasaynu dul istaagin. waxaan rajayn doonaa inuu muuqaalkan ku ahaa mid informative ah. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.